gudoomiyaha golaha shacabka ee dalka aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa tan iyo shalay gelinkii dambe oo uu qaatay go'aan la xiriira in sharciyad rasmi ah uu siiyey xildhibaanadii lagu soo doortay ceelwaaq wuxuu wajahayaa culays amni oo aad u xoogan sida warar la helayo ay sheegayaan. xogaha la helayo ayaa tilmaamaya in gudoomiyaha uu la kulmayo hanjabaado dil ah oo uga imaanaya xubno ka tirsan dowladda balse aan la shaacin cidda sida gaar ahaaneed ay u yihiin. warar soo baxaya ayaa sheegaya in amniga aadan madoobe si weyn loo adkeeyey islamarkaana lagu kordhiyey ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan howlgalka ATMIS kuwaasi oo xaqiijin doona amniga gudoomiyaha. villa Soomaaliya ayaa aad u daneynaysay in ugu yaraan xal laga dhigo in 8 qofood laga keeno dhinaca Garbaharey 8 qofood oo kalena laga keeno dhinaca ceelwaaq kadibna sidaasi sharciyada ay ugu ogolaadaan golaha shacabka gudoonkooda in ay baarlamaanka ku soo galaan. laakiin aadan madoobe ayaa qaatay go'aan la xiriira in sifo sharci ah lagu soo doortay xildhibaanadii ku soo baxay doorashooyinkii ka dhacay ceelwaaq kuwaasi oo taageero ka haystay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, ku-xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID Muuse Geele Yuusuf. dad badan oo sharci yaqaana ayaa sheegaya in aadan madoobe uu qaatay tallaabo sax ah maadaama xildhibaanadii lagu doortay Garbaharey ay haysteen oo kaliya garab ka mid ah FID oo wax taageero aysan ka haysan madaxweyne Axmed Madoobe iyo ku-xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan oo magaaladaas ka soo jeeda isla markaana ay ahaayeen kuwa iyaga isdoortay maadaama gado ay ka tirsan tahay Jubbaland. markii dambana culaysyo amni oo ay la kulmeen ay ugu wareejiyeen maamulka Jubbaland iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ceelwaaq in doorashada ay ku dhacdo. xildhibaanada qaar oo warbaahinta la hadlay waa kuwii lagu soo doortay Garbaharey ayaa waxa ay wax laga xumaada ku tilmaameen tallaabada uu qaaday gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe iyagoo tilmaamay inaysan ka hari doonin oo ay yihiin xildhibaanada saxda ah ee baarlamaanka soo xaadiri doona. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad soo booqatay page-keena nagu soo bir ayaan ku leenahay subscribe dheh gambaleelka furo like iyo share iyo qaybta commentigan in fikirkaaga aad inoogu reebto ayaan kaa rajaynaynaa channelkeena Taya Media Group. sidoo kale Facebook ayaad naga soo raaci kartaa oo follow iyo like ayaad dhihi kartaa Taya Media Group. mahadsanidin.